fiid wanaagsan dhammaan bahda saxaafadda iyo golaha wasiirada iyo taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed sida uu wasiirku sheegaba press conference-ga ama kulanka wuxuu ku saabsan yahay baahinta iyo inaan idala qaybsano go'aan 13 bishii Juulaay ee golaha wasiirada ay ku gaareen magaalada Kismaayo kaas oo lagu mamnuucayo dhammaanba wax kasta oo lagu taageerayo ururada nabaddiidka iyo argagixisada sida al-shabaab iyo daacish waxaan ka warqabnaa in dhaqaale aad u fara badan oo magacyo kala duwan loogu yeero ay ka soo galaan ururada argagixisada sida shabaab qaybo kala duwan ee bulshada ah lacagaas waxa loogu yeeraa taakulayn waxa loogu yeeraa zakawaad waxa loogu yeeraa ganaax waxa loogu yeeraa taakulaynta mujaahidiinta waxyaabo fara badan ayaa loogu yeeraa waxaana laga qaadaa cid kasta oo hanti ay ku tuhmayaan waan ognahay in kooxaha argagixisada si joogto ay u cagjugleen camburna ay ku hayaan shacabka Soomaaliyeed baadna ay ka qaataan waxaan ka warqabnaa baadaas ka sokow ganacsato iyo maalqabeeno fara badan oo ilaa xad ku qanacsan fikirka al-shabaab inay jiraan oo ku dhiirigeliya ganacsato iyo dad kale oo Soomaaliyeed dhaqaale leh in ay si sahlan u taakulayaan waxaan ka warqabnaa in nidaamkeen isgaarsiinta xawaaladaha iyo habka lacagaha loo kala wareejiyo inaysan noo nidaamsanayn waxaad kaloo ka warqabtaan in ay jiri karaan annaguna aan ognahay inay jiraan ganacsiyo fara badan oo u muuqda meelo shabaabku ay ku maareeyaan dhaqaalahooda iyo sirdoonkoodaba waxaad la socotaan inay ka faa'iidaysanayaan argagixisadu burburka baaxadda leh ee ummadda Soomaaliyeed ay soo gaartay oo dhan walba leh iyo dagaalada iyo colaadaha qabaa'ilka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada u dhaxeeyay iyo qabaa'il ilaa xitaa siyaasiyiinta khilaafka iyo isjiidka ka dhaxeeya marka si arrimahaas wax looga qabto dabcan oo looga hortago dhaqaalaha cadawgan faraha badan oo laayo loo xakameeyo dabcan golaha wasiiradu go'aano ay soo gaareen lagu xakameeyo bulshada Soomaaliyeedna lagu baraarujinayo in ay qatar tahay in la taakuleeyo cadawga waxa lagu marmarsiyoodaa dadka inta badan waxay ku marmarsiyoodaan waan handadaan waan cabsadaan laakiin ilama ahan in qiil tahay in lacagta la siinayo shabaab la garan waayo in qarax lagu soo sameeynayo rasaas dadka lagu dilo oo lagu dumiyo guryaha in lagu gadanayo dad masaakiin in lagu laaynayo in si toos ah iyo si dadbanba lagu xoojinayo jiritaankooda iyo howlahooda marka ma u maleeynayo qiil inay tahay si aad lafahaaga ku dabaratid oo aad lafahaaga ku badbaadid ummadda Soomaaliyeed guud ahaan in riska ama qatar la gasho waxa la rabaa wixii hadda ka dambeeya hadii la yiraahdo in laga waantoobo taakulaynta si tooska loo taakulaynayo cadawga macquul maahan qof Maka al-Mukarrama jidkeeda ku ganacsada oo Bakaar ku ganacsada oo suuq baad ku ganacsada oo Xamarooyin ku ganacsada in qof tooro jooga baad joogta oo ka qaado dadka Soomaaliyeed laba wada u furan in ay ka guuraan goobaha nabdoon ee dawladda ay degan tahay la degaan shabaab inay la dagaalamaan kana hor yimaadaan ee uma furna in in la dulaysto uma furna in baad joogta laga qaato uma furna xoolihii dhididkooda iyo dhacaankooda ay ka keeneen dadka in lagu laayo ay yiraahdaan waa cabsanaynaa dawladda waajiba saaran waxay tahay ilaa xad intii ay ammaan sii karto ay difaaci karto oo ay ka hor istaagi karto qof Soomaaliyeed dhibaato in ay ugu timaado shabaab inay dadaalkaas sameeyso waajib waaye inay guluf iyo duulaan ay ku qaado meelaha shabaabku u degan yahay oo jiritaankooda sida ugu dhaqsiyaha badan meesha looga saaro waa waajib dawladda saaran dadka Soomaaliyeedna waxa waajib saaran ah in dagaalkaas cadawga lagu haayo hal meel looga soo wada jeesto oo aan hadda dawladda si gooniya aanan ii sheegin loogu fiirsan go'aamada hadda la gaaray marka waxay kamid tahay waxa la ballaarinaa dagaalkii lagu haayo shabaabka oo dhaqaalaha looga hor istaagay hal wiil qoray watay amaankii lagu xumaa waa la kabyo kala duwan oo siyaasad leh oo dhaqaale leh oo bulsho leh oo wax walba fara badan leh
waxaa la rabaa marka qorshe qaran oo dhammaystiran iyo aragti ballaaran in laga qaato dabcan intaan dhiig bixi lahay waxaa naloo qaatay in aan kulligeyn hal meel aan ugu soo wada jeesanno annaga waa naqaanaa qof kasta lacagta la saaro laga qaado waxaan haynaa caddaymo arrimahaas la xiriira waxaan u yeeri doonaa dhammaan ganacsatada Soomaaliyeed oo baadda bixisay hal qof waa u naqaanaa haddii la helaado waa arki doonaa dabcan wixii hadda ka dambeeyana cid looga dul qaadan doono ma jirto inay ku qanacsanaato xukunka shabaab cid loogu aabiyeeli doonaa ma jirto inay u aqoonsato ciddii canshuur siisa shabaab micnaheedu maamul sharci iyo nidaam sharci u aqoonsata ma laga yeeli doono haddii Ilaahay yiraahdo in ay shabaab hoosna ay ka siiso ii sheeg maxaan ku dhaca canshuurta korna oo liyaysay kaana dhigto dadka Soomaaliyeed waxaa laga rabaa waxaan si loo dhammaystiro hal meel waxaan looga soo wareejiso dagaalka dawladda ay ku jirtana gacan la siiyo dhaqaalaha shabaab la siinaayo cudurdaar ma leh aniga sida ila tahay waxaan ka rabnaa marka isgaarsiinta bangiyada xawaaladaha in aysan lacag u qabanin u kaydinin u ganacsiinin u kala gooshin wixii hadda ka dambeeyana qorshe dabcan waxa jiri doona si dhow lagu la socon doono oo xisaab la furan kara aysan jirin ayadoon dawladdu ogeyn oo xoolo la bixin kara aysan jirin dawladda iyadoo ogeyn oo tallaabo dhaqaale oo la qaadi kara aysan jirin iyadoo dawladdu ogeyn cidii lagu qabtana ayadaa ka jawaabaysa sababta saas loo yeelanayo inaan ganacsiga iyo dadka Soomaaliyeed aan camburinayna ma ahan waxay tahay naftiina iyo maalkiina iyo sharaftiina inay nabad gasho ayaan rabnaa dabcan dagaalkaanu dagaal sahlan ma ahan dagaal oo hadda ii sheegay jidadka intii la istaago dad la baarbaaray ku joogsana ma ahan haddii dhaqaale ku qulqulaay oo qalbiga dadku ka taageersanay oo og yihiin in laga cabsanayo oo og yihiin talaabada jir in laga qaaday cadawgan lama xididisiibi karo wax si gooni looga qaban karaan ma jiro waxaan rabnaa dagaalka shabaab lagu la jiro iyo argixisada iyo nabadiidka wixii hadda ka dambeeya inuu ballaaran doono xoogaysan doono kulligeena ay tahay inaan ka qayb qaadano haddii Ilaahay yiraahdo marka waxaan ka codsanaynaa dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan in waxaana la gartaan dawladda ay gacan siiyaan ciidamadooda ay garab istaagaan sida ugu dhaqsiyaha badan haddii Ilaahay yiraahdo marba haddii dhaqaalaha laga cuuriyaamay jiritaankooda ma sii jiri karo laakiin haddii bishii qof kasta oo dukaan leh qof kasta oo goob ganacsi leh qof kasta oo shirkad leh inta loo yeero xoolihiis waa intaan la yiraahdo wixii doona laga qaadanayo haddana waxaas baabuur qaraxa iyo rasaas iyo wax la dilo iyo bastoolada ciidan lagu qoranayo dagaalka ma istaagayo dagaalka waxa joojin kara waxa koobka dadka dhaqaalaha bixinaya fadlan wixii maanta ka dambeeyay cid loogu dul qaadan doono in shabaab dhaqaale si ama jirto waxa la ka codsanaynaa ganacsatada aad wixii ka dambeeyay saacadan shirka jaraa'id la qabtay ciddii toortoorow iyo ii sheegeen maxaan ku dhahaa meelaha ay shabaabku degan aadaysa waa la qabanaa ciddii ka imaanaysa waa la qabanaa su'aalaha la weydiinaa ciddii lagu tuhmo ama lagu xaqiijiyo in ay dhaqaale geeyeen u xugun tageen shabaabka meelaha ay joogaan ay tagaan maxkamada la saaraa hantidooda waa lala wareegaa wax turin la yiraahdo hadda kadib hadii la yiraahdo ma jirto dadka Soomaaliyeed markii hore hadaysan xaraan loo aqoonin shabaab wax la siiyo wixii maanta ka dambeeya waa xaraan ciddii lagu arkana shabaabkii la mid tahay marka dacban taliyaha booliiskan siino hadii la yiraahdo anigu waxaan rabaa in aan taas ku soo gunaanado aan insha Allah sida ugu dhaqsiyaha badan go'aamadan way dhaqan digili doonaan cabashooyin iyo qayle iyo buuq waa ka imaan doona laakiin ha loo dul qaato ujeedada laga leeyahay ka weyn hadii la waxa go'aamada loo gaaray ujeedo xun maahan waxay tahay dhiigga iyo sharafta ummadda Soomaaliyeed inay badbaado waxaa la rabaa dhaqaalihiin iyo sharaftiina meel kasta joogtaan inaad u istaagtaan ad baraarugtaan cid wax idin kala qaban karta cid idinka wax idin qaban karta ma jirto haddaan idinku wax qabsan taliya waa ma soo dhaw